shirkan jaraa'id wuxuu guddoomiyaha ku faahfaahiyey ugu horreyn qaabka u dhaca shirkan iyo waxyaabihii looga wada hadlay. shirkan wuxuu ahay shirkii sanadlaha oo kaaf oo standing committee-da ah guddo hoosaadyada kaaf oo aan ka mid ahay aniga kana tirsanahay qaybta under 17ka dhalinyarada da-dooda ka yartahay 17 jirka. si aad la socotiin sanadka horeba waan imid iyo sanadkan waxaana looga hadlayay kolleyba wixii qabsoomay sanadkii hore iyo waxa la qabanaya hadduu ilaa yidhaahdo sanadka soo socda. waa shirkiina waxaan galnay 3 bisha waxqabadkii africa oo dhan oo looga hadlayay tartamadeedii iyo tartamada hadduu ilaa yidhaahdo world cupka oo under 17ka ka dhacayo Nigeria hadduu ilaa yidhaahdo 24 October ka furmayo ayaa looga hadlayay iyo Afrika qaybtii ka qaadan lahayd. sidoo kale guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Saciid Maxamuud Nuur Saciid Mugambe waxa uu sheegay inaysan bajiran wax khilaaf ah u dhaxay isboortiga Soomaaliyeed. wuxuuna tilmaamay in asagoo wakiil uusan ba ka ahayn isboortiga oo dhan uuna maamulo kubadda cagta taasna aysan jirin wax khilaaf ah oo ka taagan. wax khilaaf la yiraahdo oo ka jira isboortiga oo dhan horta mas'uul ka mid yahay waxa mas'uul ka nahay kubadda cagta laakiin waxa ku sheegay wax khilaaf ah inuu ka jirin wax dhibaato ah inuu ka jirin oo hawshina ay si fiican u socoto. guddoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta wuxuu daboolka ka qaaday inay qabanqaabo ugu jiraan ciyaarihii gobolada Soomaaliyeed ee sanadkan lagu qaban doono maamul goboleedka Puntland. waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo in aan qabano sanadkan tartankii ciyaaraha gobolada oo aan ku qabano Puntland oo aan isugu geyn doono hadduu ilaahay yiraahdo gobolada oo dhan iyo koox ka imaan doonta insha allahu tacaala. aan rajaynayna diaspora inay ka imaato dhalinyarada Soomaaliyeed qurba joogta. marka taas macnaheedana waxay noqon doontaa hadduu ilaahay yiraahdo nin kastoo Soomaali ah iyo cunug kastoo Soomaali ah in aan gaarsiino inuu kubadda dheelo insha allahu tacaala. marka waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdana in aan wax badan inaan bedeli doono wax badanna aan qaban doono insha allahu tacaala. saad la socotiin waxaa garoonka Stade Conis ka socday dhismo oo loogu talagalay in la saaro artificial tourism waxaa ka dhacay meeshii dagaal ka socdaan. waxaan rajaynaynaa sanadkan sidaa la socotiin FIFA sanadkii hore waxay ahayd sanadkii Falastiin garoonkooda loo dayactiray waxaana soo furay Balater. sanadkan waxaa la yiri 2009ka sanadkii Soomaaliya. marka sanadkii Soomaaliya ahayd waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo haddii waxyaabahan yaryarka khilaafaadka iyo dagaalada yaryar ay dhamaadaan in sanadkan ay wixii oo dhan ku dhamaan doonaan insha allahu tacaala. mahad carab oo cali telefishinka Universal Al Qaahira.